بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا كانال كيني SMCC maanta waxaan ka hadlaynaa cudurrada laga qaado xayawaanada. Inta badan dadyoga ku nool daafaha caalamka waxa ay guryahooda ku xanaaneeyaan xayawaano badan sida bisadaha, eyga iyo wixii la midka ah. Cudurrada laga qaado xayawaanada waxa ay ku gudbi karaan qaab toos ah sida in ay ku gaaraan dheecaanada xayawaanada ama waxa ay ku gudbi karaan qaab aan toos ahayn sida in aad taabato agab ama weel uu wax ku cunay xayawaanka xanuunsan. Hay'adda caafimaadka adduunka cilmi baaris ay sameysay waxa ay ku sheegtay in sanadkii ay la xanuunsadaan 1 bilyan oo qof cudurrada laga qaado xayawaanada, halka si sanad la ay ugu dhintaan dad tiradooda ay gaarayso malaayiin qof. Cudurrada ugu caansan ee laga qaado xayawaanada waxaa ka mid ah rabiya oo laga qaado qaniyada eyga xanuunsan. Sidoo kale waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaan brucella oo sababa in hooyada ay uurka leedahay ay dhiciso. Cudurkan waxaa laga qaadaa caanaha lo'da oo ceyriinka iyo hilibka lo'da oo si wanaagsan aan loo karin. Sidoo kale cudurrada laga qaado xayawaanada waxaa ka mid ah cudurka hadda safmareenka dunida ku ah ee coronavirusna waxaa laga qaaday kibileyda. Cudurka Ebola waxa uu ka mid yahay cudurrada laga qaado xayawaanada. Sidoo kale cudurrada xayawaanada laga qaado waxaa ka mid ah duumada, kaduudiyaha, hergab doofaarka iyo wixii la midka ah. Sidee ayay ku faafaan cudurrada laga qaado xayawaanada? Hawada ayaa lagu kala qaadi karaa. Sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa cunista hilibka xayawaanka xanuunsan, qaniyada xayawaanka iyo u dhawaanshaha xayawaanada xanuunsan. yaa halis ugu jiro cudurrada laga qaado xayawaanada. waxaa halis ugu jiro hooyada uurka leh, dadka da'dooda ay ka weyn tahay 65 sano, dadka qaba cudurrada AIDS-ka, dadka qaba kansarka iyo dadka difaacooda uu liito. Daawade, maadaama xayawaanada ay dhaqdaan dadka intooda badan, sidee ayaan uga hortagi karnaa in ay cudurro nagu sababaan? In aan gacmaheena si joogto ah u dhaqno, mara kaneeca inaan isticmaalno haddii ay kaneeca aan ku aragno gurigeena, in aan ka fogaano u dhawaanshaha xayawaanka xanuunsan marka xayawaanada ay xanuunstaan in aan ka fogaano. Sidoo kale in aan iska ilaalino in aan cunno cunooyinka ay taabteen xayawaanada xanuunsan sida eyga raabiyada qabo kale haddii wuxuu taabto inaan iska ilaalino, bisada xanuunsan oo kale inaan iska ilaalino. Sidoo kale caanaha lo'da inaan iska karkarino xilliga cabitaanka. Waad ku mahadsantihiin la socoshada muuqaalka.